أغيرت هذا وما سنتين هرتا runtii waxaan rabaa inaan saddex kalmadood iraahdo marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo Allah subhanahu wa ta'ala oo maanta guushan taariikhiga na gaarsiiyay kadibna waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada Soomaaliyeed ee sharafta leh ee runtii na siiyay kalsoonida sida aqlabiyadda ah ku ansixiyay guddigan madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka oo runtii maanta ah taariikhiga sababtoo ah waa markii ugu horeysay sida dad badan ay sheegeen in Soomaaliya ay yeelato guddi xuquuqul insaan ah sidoo kale waa guul maanta u soo yeetay shacabka Soomaaliyeed sababtoo ah waxa ay dib ula soo laabteen muddo dhowr iyo 30 sano kadib markii ugu horeysay Soomaaliya in ay iyadu maareyso oo ay la socoto si madax bannaan arrimaha la xiriira xuquuqul insaankeeda marka runtii waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka Marwo Khadija Maxamed Al-Makhzumi oo runtii toddobaadkii horena guul taariikhi ka soo hoysay shirkii Geneva runtiina waa arrin aad iyo aad loo bogaadiyo oo ummadda Soomaaliyeed maanta ay ku farxayaan madaxda qaranka haddii ay noqon lahayd xildhibaanada sharafta leh guddoonka baarlamaanka intuba ay ku mahadsan yihiin ahmiyadda ay arrintan ummadda Soomaaliyeed u leedahay laakiin maanta ayuu bilaabanayaa hawsha ugu muhiimsan sababtoo ah guddigan waxay ka shaqayn doonaan sidii u ilaalin lahaayeen xuquuqda dadka Soomaaliyeed sidii ay u dhowri lahaayeen karaamada iyo sharafka dadka Soomaaliyeed idinkoo suxufiyiintii ah xuquuqdiina oo runtii dadka aadka u dhibaataysan oo dulman aad ka mid tihiin sidii xuquuqdiina loo ilaalin lahaa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa maadaama hawshaasi mas'uuliyadda culus garabka naloo saaray maanta in ay nala shaqeeyaan annaguna sidii aanu ku dhaaranay si cadaalad ummadda aan ugu shaqeyno aad iyo aad u mahadsantiin oo bilaa